dowladda Burundi oo shaacisay tirada askartii looga dilay weerar ay kala kulmeen shabaab oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug oo maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb iyo ammaanka oo aad loo adkeeyay. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulan xasaasi ah la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda kalena hadlay qorshaha dib u habaynta maaliyadda dalka. wafdi ka socday dowladda iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO maanta gaaray magaalada Baydhabo. madaxweynaha Soomaaliland oo xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo magaalada Burco. shirka maalgashiga Puntland oo galay maalintiisii labaad. shacabka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ka hadlay waxqabadka madaxweynaha Hirshabeelle tan iyo markii la doortay. wararka dibadda ee aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah rabshado ka dhashay eedeymo la xiriira aflagaadeynta diinta oo ka dhacay Pakistan. iyo madaxweyne Trump ka dalka Mareykanka oo ka hadlay qorshaha weerarka ka dhanka ah Iran. dowladda Burundi ayaa waxa ay shaacisay tirada askartii looga dilay weerar ay kala kulmeen shabaab kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyahana Xuseen Washington ayaa ka warramaya. dowladda Burundi ayaa shaacisay tirada askarta looga dilay weerar maalin ka hor ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo la eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi. war ka soo baxay dowladda Burundi ayaa waxa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Goroley oo ku yaala inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar looga dilay 12 askari oo ka tirsan ciidankooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. sidoo kale warka ka soo baxay dowladda Burundi ayaa waxa lagu sheegay in dhaawac ay ku noqdeen askar kale oo ka tirsan ciidankooda kuwaas oo socdaal ku maray duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ha yeeshee uu qabsaday weerar dhabagal ah oo ugu yimid dagaalamayaasha Al-Shabaab. war qoraalaha oo lagu daabacay baraha internetka Al-Shabaab ay ku leeyihiin ayaa waxa ay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarkii la eegtay kolonyada ay la socdeen ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi isla markaana ay ku direen halkaas 14 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawaceen. inta badan wadada isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale Jowhar ayaa waxa ka dhacay weeraro iyo qaraxyo kuwaas oo ay sheegtaan mas'uuliyadooda dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo ugu dambeysay maalin ka hor weerar halkaas ka dhacay lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle kuwaas oo socdaal ku marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale Jowhar gaar ahaan wadada u dhaxaysa Balcad iyo sidoo kale Jowhar waxaana weerarkaas lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas'uuliyiin kale oo la socday. xuseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasi laga dareemayaa xaqiijinta amniga magaalada. ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta gaaf wareegaya qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo la filayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ay gaaraan saacadaha soo socda. ujeedada booqashada ay ku tagayaan halkaas ayaa waxa ay la xiriirtaa soo gabagabaynta shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo ra'iisul wasaare Khayre uu ka soo furay halkaas la markaana dhowr cisho ka socday. wafdi hordhac u ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb iyadoo ciidamo gaar ahna sidoo kale la geeyay. ciidamadan ayaa waxa ay yihiin ciidamada gaarka ah ilaalada madaxtooyada ee ilaalisa madaxweynaha. sidoo kalena waxa ciidamadaas maanta ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb goobta uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta ee shirkooda iyo sidoo kale xarumo kale oo ay suurtagal tahay inuu booqdo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doona shirka dib u heshiisiinta oo uu soo xiriyo iyadoo sidoo kalena Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Galmudug uu sidoo kale halkaas isaguna ka hadli doono sheegina doona mowqifkiisa ku aadan dhismaha Galmudug iyo sidoo kale sida ay ku timid in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacaan shirka dib u heshiisiinta iyo in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lagu wareejiyo. magaalada Dhuusamareeb ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka socda shirkaas dib u heshiisiinta iyadoo inta ra'iisul wasaaruhu uu ku sugnaana la isku geeyay beele in muddo ah dirirsanaa. sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si gaar ah ula kulmi doonaa ergooyinka kala duwan ee matalaya beelaha deegaanada Galmudug ee shirkaasi ka qayb galaya.
ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu kulan xasaasiya la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waxaana uu sidoo kale kala hadlay qorshaha dib u habeynta maaliyadda. fartuun cabdinuur ayaa warkan faahfaahinaysa. wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda maaliyadda ee dalka. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaana inta uu ku sugnaa xarunta wasaaradda maaliyadda waxa uu ka qayb galay shirka toddobaadlaha ah ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya kaasi oo ka socda xarunta wasaaradda maaliyadda. sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixin ka siiyay shirka dhawaan magaalada Addis Ababa ku soo gabagaboobay kaasi oo ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maamul goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayay deyn cafinta Soomaaliya. dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an fulinta iyo horowsi wadida wax walba oo lagu gaarayo cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ayuu yiri wasiir Beyle. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada wasaaradda isla markaana waxa uu warbixin uu ka dhageystay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. fartuun cabdinuur aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu xarigga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. sidoo kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa halkaasi waxa uu kulamo uu kula yeeshay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka isaga oo kala hadlay arrimo la xiriira sidii ay markaasi magaalada Burco loo xaqiijin lahaa ammaankeeda iyo Somaliland qaabka ay wada shaqeyn u yeelan karto shacabka magaalada. booqasho uu ku tagay halkaas ayuu inta uu ku sugnaa waxa uu sheegay in mashaariic horumarineed laga hirgelinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. shacabka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka hadleen waxqabadka madaxweynaha maamulka Hirshabelle tan iyo markii la doortay. Mustafa Cali Cabdow ayaa ka soo warramay beledweyne. baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta oo kale 16 bishii September 2017 u doortay Maxamed Cabdi Waare inuu noqdo madaxweynaha Hirshabelle. qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa ka hadlay waxay sheegeen in uu sameeyay horumarro kala duwan. waxa uu sameeyay horumarro kala duwan haddii ay ahaan lahayd mashaariicda uu ka furiyay magaalada beledweyne iyo jowhar. mashaariicdaas oo markaasi dhagax dhigay caqabad waa jirtaa oo dadka mashaariicda laga soo qaaday waxa lagala kulmi karaa oo inta badan maaragtaa maadaama ay yihiin hay-ado waxa laga yaabaa intaysan qofka amaba wax si toos ay usoo dhiiban. waana sii taageeraynaa madaxweynaha Hirshabelle. waxaan isleeyahay in waxyaabo badan uu sii qaban karo hadduu xilka sii hayo in waxyaabo badan uu sii qaban karo. sidoo kale dadka qaar ayaa aaminsan inaysan jirin wax horumar ah. waxaa magaalada ku soo kordhay amni daradeeda Hirshabelle oo dhan. magaalooyinka sida caasimadda wadada Balcad xiriirisa iyo Jowhar waad aragteen amni darada haysato banaanka u soo baxayo shacabkii Soomaaliyeed kuwa Jowhar ku nool kuwa gobolka Hiiraan ku nool ay ka mar iska baxayaan oo webiga markuu banaanka imaado ay qaxayaan. wax laga qabtay malahan mashaariic fara badan oo qabtay ma jirto. marka aniga waan ka soo horjeedaa wax uu qabtayna ma jirto ayaan aaminsanahay. waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Hirshabelle in uu qabto mashaariicyo fara badan sidoo kale in uu dardargeliyo amniga Hirshabelle ciidamada inuu tayo u yeelo. Hirshabelle ayaa maamulkii ugu dambeeyay ee ku soo biiro nidaamka federaalka ee hadda ay ku dhaqanto Soomaaliya. dadka falaqeeya siyaasadda ayaa qabo in deegaanada maamulka Hirshabelle ay ka jirto amni darro.